warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa xuskii lagu qabtay magaalada Muqdisho ee 26 Juun isagoo eedeyn u soo jeediyay madaxweynaha wadanka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo siyaasiga oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa Farmaajo wuxuu soo qaaday 26 Juun iyo dadkii u soo halgamay magacyo ayuu halka ka tiriyay aan aad iyo aad uga xumahay inuu qaldo oo magacyo aan mudnayn in la qaldaa waliba nin madaxweyne sheeganaya oo qaldaanay ahayn wuxuu ku bilaabayaa afqalooc barkhad cas cali suule dabeedna wuxuu raacinayaa qaasin cabdilaahi qarshe cabdilaahi suldaan timacade waa ayaan daro inuu madaxweynuhu waliba khudbadda qoraalka ah uu soo qortay ugu soo diyaar garoobi waayo si habboon halkaa wuxuu ka akhriyay tuduc yar oo ka soo saaray sareeyo munusqaamow oo ku sheegay gabay cabdilaahi suldaanna muu gabin maalintaas ee uu geeraaray madaxweynuhu waxa kale oo sheegay inuu gabayga cabdilaahi sultaan ka tiriyay magaalada Hargeysa 26 Juun 1960 cabdilaahi suldaanna meeshii fagaara ahayd ee ugu horeysay iyo maalintii ugu horeysay ee uu geeraar ka tiriyaa waxay ahayd 25 Juun salaad casar iyadoo laga soo baxay iyadoo la joogo halkan uu masaajidka Ibraahim Dheere ka dhisay oo garoonka badeeda ahaan jirtay wuxuu soo qaatay Farmaajo wuxuu soo qaatay tuduc kamida tuducyadaas cabdilaahi suldaan baa geeraarka tiriyay calanka Soomaalida ee 26 Juun Hargeysa laga taagay ayuu tiriyay samada kiiwa kaaya xidigaa mid la siiyay sayruuqii Afrikaado sagal maanta darooray oo siigadii naga maydhayo sareeyo manusqaamo aan sidoo yahay eega saaxirkii kala guurnay kaana siib kana saar afmaalkii wadaniga ahaa ee Soomaalidii deganeyd gobolka waqooyi waxba uu lama harin calanka wixii lagu muunayn lahaa ee milge iyo maamuus looga dhigi lahaa hees iyo gabay iyo geeraar iyo maansaba waa ay u dhameeyeen maanta mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo erey gabaya ama erey geeraara ama hees uu soo qaadan karo oo uu soo qaban karo oo loo tiriyay calankaas oo muxibbiye kalgacal loogu tiriyay oo 1 Juulaay 1960 la tiriyay oo soo qaadan kara ma jirto wixii ay ku heesaanba waa Soomaaliya toosa qolada calankeedu waa cayn baanboygu markuu madaxweynaha hormaraya wixii ay tumayaan waa heesii laga tiriyay Hargeysa waaye cusub abuurmay oo keenay inay Soomaaliland xaaladdan ku sugnaato gudoomiyaha aqalka odayaasha wuxuu aad baan uga xumay inuu calanka ka taagan yahay Soomaaliland wax laga xumaado ma aha hadduu ka xumaado haddaanu ka xumaanba calankan uu taagnaanaya wax laga xumaada isagoo gudoomiyaha aqalka sare in marka ay labada gole isu yimaadaan uu jawaari noqdo gudoomiyaha labada aqal oo jawaari oo sharciyan u gudoomiyaha aqalka hoose isaguna iyo gudoomiyaha aqalka sare markaynu af Soomaaliga ba isla keen weyno annaguna sare aanu u naqaano idinkuna hoose sare u taqaaniin waa ayaan daro weeye waxa weeye waaya abuurmay waayahaasi wuxuu ka abuurmay wixii dadkan lagu sameeyay maalinta timacade lahaa danteena laba diiday ee cali suule taa qaadayay ee Allah u naxariistay cabdi iidaan faarax isagoo hudheel ka qadeynaya cadal laga daydaa maandeeq intuu arkay hal weyn oo candho weyn oo meel ku sawran cadal laga daydaa lagu sawiray calanka hoostiisa ariya maalay oo loo liso caawa garanaya timacada ku soo noqday ridha shaaba la iskaga daraa rubaca jiilaale ma riwaayad baa calanka soo ruuxna kuma naaxo tabashooyinkii halka ka bilaabmay qori caaradii gaadhay 1980 ilaa 1990 dagaal sukeeyaan ku jirnay waanu ku guuleysano ciidamadii cadawga waanu ka adkaano dalkayagii waanu gacanta ku dhignay maanta Farmaajo hadii la weydiiyo wuxuu oranayaa dagaalada sukeey 1990 bilaabmay maanta Cabdi Xaashi Farmaajo hadii la weydiiyo waxay oranayaan Hargeysa ciidana ma duqeyn waxna kama dhicin waxay doonayaan xoogii dalka ee duqeeyay ee baabiyay inaanu anagoo Hargeysa joogna anagoo Burco joogna Laascaano joogna Boorama joogna u dabaaldegno manaynaan arag wax u dabaaldegay wixii hooga iyo jabka baday
hadalka waxaan kaga baxayaa farmaajo iyo bahdiisa waxaanu leenahay hasalaaxi naas guran ninkii gaagaxshaatay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, telefishinka caalamiga Star, Hargeysa.